بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. maanta axada oo ay bishu 6 tahay waxaan ka soo noqday wadanka Australia oo aanu muddo 7 aan ku joognay socdaal iyo safar. waxaan halkan iska raacnay aniga iyo wasiirka khaarijiga 26 bisha waxaanu tagnay Sydney halkaas aanu kula kulannay jaayada Somaliland ee Sydney. wasiirku shirka ka bacdi uu naga soo noqday wuxuu ku soo noqday wadanka Ingiriiska sidoo uga qayb galo maxaan ilaahay aftidii la keenay amba arrinkii la keenay councilka Sheffield amba deegaanka Sheffield arrinkaas uu ka howlgalay anu markaa waan kaga dambeeyay jaariyadda Somaliland ee Sydney ka sokow waxaan la kulannay wasaaradda khaarijiga iyo ganacsiga xubno ka socda waxaan kaloo la kulannay jaamacadda weyn ee jaamacadda Canberra la yiraahdo caasimadda Australia taala waxaan kaloo la kulannay macahad daraasaadka sameeya caalamiga ah ay leeyihiin Australiyaanku markii dambana waxaan tagnay Melbourne markaasaan ina kula kulannay jaaliyadda reer Somaliland ee reer Melbourne kulammadaan la yeelanay dawladda iyo hay'adahaas waxaan uga warranay Somaliland taariikhdeeda xaaladdeeda dadkeeda dhaqaalaheeda waxaan kaloo uga warranay oo ka wada hadalay danaha inaka iyo Australia naga dhaxeeya iyo sida Australia danaha ay wax uga qaban karto amba inaga caawin karto aan iska kaashan karro aad bay u soo dhaweeyeen insha Allah bidna karim waxaan rajaynaynaa inay wax nooga soo baxaan ka mid ka dhashaan waxiilaanu hadda aanu bilownay kala hore ayaa runtii wasiirka macdintii iyo tamartu u tagay Dr. Hussein oo madaxda qaar ay sarkeen kana uu daba socday socodkaas uu daba socday way noo bilow aad baan u rajooga qabnaa ka inuu xiriir wanaagsan ka dhalan doono waxtar badan aynu ka heli doono ida laftigeeda waxaanu sameeyay xiriir xagga jaaliyadda waa jaaliyad aad iyo aad u qiimo badan waxaan doonaa ka faa'iideysanahay munaasabadan halkan uga mahad celiyo sidii wanaagsaneed ee diiraneed ee xushmada lahayd ay noo soo dhaweeyeen waa jaaliyad aad iyo aad reer Somaliland oo haruna uga qayb gashay halgankii ka qayb gashay nabadeyntii ka qayb gashay dubudhiskii iminka noo diyaareen ka qayb gasho hawlaha wadanka u yaala oo ka mid yahay wadada burco ilaa alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam mahad celinta ilaahay kadib waxaanu halkan ka ambabaxnay 30kii bisha aniga iyo laba khabiir oo ka tirsan wasaaradda duulista ama civil aviationka Somaliland waxaanu u tagnay inaanu ka qayb galno shir ka dhacay magaalada Istanbul wadanka Turkiga oo ay amaamudeysay ama gacanta ku haysay dawladda Turkiga shirkaas oo laba guddi farsamo Soomaaliya iyo Somaliland ka soo kala jeeda isugu imanayeen shirkii ugu dambeeyay ee wada hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Istanbul 18 January 2014 sideedii qodob ee ka soo baxay waxa ka mid ahaa qodob u xil saarayay ama u idmayay laba guddi farsamo in la sameeyo si loo gunaanado arrintii hawada maamulkeeda sidii loo wadaagayay in la sameeyo wax la yaabti oo ah terms of reference ay ku shaqeynayaan boardka hawada maamulay mas'uuliyadda iyo xilka naloo idmaday oo sidaa ahayd waxaanu isugu nimay labadeedii dhinac waxaanu isugu nimay magaalada Istanbul gaar ahaan wasaaradda khaarijiga ayaa kulanka noo abaabuleysay gacanta ku haysay waxaan jecelahay halkan uga mahad celiyo dawladda Turkiga guud ahaan doorka ay ka ciyaarto wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya iyo gaar ahaanba siday noo soo dhaweysay noo martigelisay hawshan iminka ah aan ka warramayana ay gacanta noogu haysay ujeedada ugu weyn ee labadan guddi
loo magacaabay waxa ahayd inaanu samayno sidaan xusay wax la yidhaahdo qaab shaqeedkii xafiiskaas Somaliland iyo Soomaaliya ka dhaxaynaya ee maamulkiisa ay wadaagayaan ee hawada controlaya in aanu diyaarino xaqiiqdii sidii loo arrintaasi markii aanu falanqaynay ee shirkii noo bilaabmay midho dhal badan lagama gaadhin sababtuna waxa keentay iyadoo oo kadinkii laga soo gelayay qaab dhismeedkii inaanu diyaarino hawshaana loo idmaday aanu ku kala aragti duwanaanay walaaladayadii guddiga farsamada ee ka yimi Soomaaliya xubno khubaro baa labada dhinacba meesha marayay aniguna laba khabiir baa ila socday iyo laba wasiir baan ahay oo anagu markaa korjoogtaanu lahay waxa runtii lagu kala aragti duwanaaday guddiga loo baahan yahay in la sameeyo halka oo miftaaxa laga soo gelayo ayaanu ku kala aragti duwanaanay Somaliland xubnahayga ka socday annaku waxaanu qabnay isla imikana qabnaa kuna qanacsanahay in shirkii Istanbul ka dhacay bishii July 7 ilaa 9 2013 ee ugu horeeyay wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya Istanbul 1 in lagaga heshiiyay in la sameeyo guddi wadaaga oo arrinta hawada si madax bannaan u maamula oo fariisinkooduna yahay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland FIR xafiiska Nairobina loo soo rarayo muxuu ahay Hargeysa loo soo raray annaga nagama laleemaysnayn ilaa haddana saasaanu qabnaa inaanu ku heshiisnahay walaaladayo waxa dhacday walaaladayo waxay la gola yimaadeen fahamka ka duwan oo ah in steering committee aanu samayno guddigayagan farsamadu steering committee gaasna aanu isla meel dhigno waxay ku shaqeynaysay wax FIR la yiraahdo iyo meesha la dhigaya inaanay ajandaha ku jirin anagu doodayada waxa weeye waa abaar iyo yool sugan bay leedahay laba guddi cidina samayn mayso mashruucana waa hal package guddi kaliya maamulaysa guddigaasina waxay noqonaysaa guddiga gacanta ku haysa hadday tahay daily operationskiisa hadday tahay istiraatiijiyadiisa hadday tahay sharing revenue-giisa in dhaqaalaha loo qaybiyo labada dal hadday tahay policies-ka waxaa soo dhan guddiga boardka ayaa maamulaya shirkaas qodobada af-ingiriisi uu ku qoraa dabcan heshiisku maadaama dawladda shisheeyana inay dhexdhexaadinaysay wuxuu oranayay qodobka koowaad ee shirka Istanbul 1 Somalia and Somaliland has agreed to establish a joint control body that based in Hargeisa to lead the air traffic control of both sides. Exactly saas uu qoray Somalia iyo Somaliland waxay ku heshiiyeen inay sameeyaan guddi wadaaga oo xaruntiisu tahay Hargeysa oo hogaamiya hawada wixii loo jiray hawadii Soomaaliya hogaamiya maamula marka anagu umaan arkayn umana aragno guddida iyo xarunta xafiiskaasi inay kala laba meelood noqon karaan hal meel inay wada joogayaan baan aaminsanahay halka marka waxa ka soo baxday iyagu waxay yiraahdeen FRA ka hadli mayno waxa uu muhiim steering committee lixdii bilood mar isu yimaada inaynu wada samaysano oo Hargeysana ay markaa isugu yimaadaan waxaan u aragnaa marka qodobkaas in runtii uu ka soo horjeedo heshiiskii dooda walaaladayo anagoo ixtiraamina aragtidooda way isku marganay runtii maaha wax u baahan in laga qariyo bulshada Somaliland iyo Soomaaliya iyo warbaahinta toona waynu adkaatay inaanu isfaham ka gaadhno halka markay arrintii ku oodantay oo iyaguna leeyihiin interpretation kale aanu haysanaa anaguna fasiraad kale ayaanu haysanaa oo qodobkan ah anaguna aanu kaan idin akhriyo aanu aaminsanahay waxa markaa aanu ku heshiinay
gunaanadkii laba qodob oo ah kow waxaanu garwaaqsanay in baahi weyn loo qabo in hawadii maamulkeedii dib loogu soo celiyo gacmaha Soomaalida Soomaaliya iyo Somaliland waxaanu mudaynay waqti aynu kagala soo wareegayno qaramada midoobay oo gacanta ku haysa oo mas'uuliyadda Resolution Security Council ku leeyahay gacanta u geliyay 1993 xilligii Dr. Boutros Ghali uu xogeeyaha guud qaramada midoobay ka ahaa resolution la oran jiray 914 oo oranaya inta dawlad Soomaaliyeed oo awood leh oo maamusha dhammaan territory-ga Soomaaliyeed la helayo waxaa mandated loo siiyay inay trustee noqoto UNDP qodobkaas markaa qaramada midoobay iminka ku haysa in January 2015 hawadii loogu soo wareejo qodobkaas oo ay maamulaan hawadaana joint control body guddi wadaaga inay maamulaan oo accountable oo ah labada civil aviation Soomaaliya iyo Somaliland ama labada dawlad inta iyadoo heshiis bayn ku lahaa hadeerna waa ku heshiinay heshiiskii horena way ku jirtay waana mudaynay iminka muddada inta ka horeysa hawl badan baa taala waxaa loo baahan yahay in la diyaariyo xafiiskii sidii loo soo rari lahaa in la diyaariyo muxuu ahaay isfaham dhaba oo qodobadan aanu isku maandhaafnay meel la dhigo qodobka labaadna waxaanu ku heshiinay maadaama arrintii halkaa ku oodantay in dhinac waliba uu ku noqdo dawladdoodii iyo mas'uuliyiintii mararkii hore wada hadallada ka qayb galay dabadeedna shirka soo socday ee Soomaaliya iyo Somaliland ku leeyihiin waddanka Turkiga Istanbul arrintaa iyada ah heshiis kama dambaysa laga gaaro markuu dhinac waliba dib isugu soo noqdo una noqdo issues waana ajendaha qodobka ugu horeeya noqon doona waana issue muhiima inuu dhaqaaqo waayo wada hadallada arrinta kaliya ee isfaham ka dhalatay wuxuu ahaa arrintiina waxaa ku soo kordhay turunturooyin iyo kala tafsiiro marka waxay u baahan tahay inaynu meel wax isla dhigno waxaan rajaynayaa shirkaas soo socda in aynu walaaladeen wax isla dhigno in aynu isla garwaaqsanno waaqaca iyo runta aad iyo aad baa mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim aniga horta hadal badan umaan bixin inaan halka ka idhaaho laba wasiir baan ku kulannay diyaaradda wasiirkii dawlasta oo hadlay iyo wasiirkii qorsheynta oo aan laba meelood aanu ka kala nimi sidaa ula socotaan anigu ingiriiskan ka imi waan ka soo horreeyay wasiirkii khaarijigan oo soconay anigii wasiirka khaarijiga saa ula socotaan madaxweynaha ayaa noo diray inaanu ka qayb galno aqoonsigii magaalada Sheffield ay Soomaaliya aqoonsatay waxaan malaynayaa aad iyo aad baa arrinta looga warramay markaan xagga joognay warar badan baa loo soo dibiyay saxaafadda wixii faahfaahina waxaan u malaynayaa inay ku habboon tahay inuu wasiirka khaarijigu oo aan maanta ila socon markuu yimaado insha Allah waxaan malaynayaa berri soo duulayo inuu wixii faahfaahina qadiyada idinka siiyo isaga ayaan u daynayaa waxaan se uun ogtahay in moogtay arrintaas inay arrin taariikhi ahayd arrin runtii albaab weyn aqoonsiga Soomaaliya u furtay ay ahayd marka runtii anigu intaas ma kaga baxaya anigu waxaan ku soo degdegay wafdi Chinese oo dalka ii joogay oo aan reeyay yani dhowr casho ii sugayay marka sidaa la ajligeed ayaan moogtay uga soo horreeyay wasiirkuna insha Allah markuu berri idin yimaado isaga faahfaahin gelaya qadiyada Sheffield ka dhacday ee taariikhiga assalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim kullay safarkaygana wuxuu ahaa mid daba socda safar hore oo aanu hore ugu tagnay Tanzania kaasoo qorshe u ahaa ururka ay ku midoobeen ururka dawladaha hoose geeska Afrika oo ay soo codsadeen afar dal oo aynu ka mid nahay Somaliland in ay lagu soo casuumo ayna ka mid noqdaan xubinimada ama ka mid ahaanshaha ururka dawladda ay ku midoobeen nasiib wanaag Somaliland ayaa chance u heshay inay noqoto waddanka kaliya ee laga qaatay afartii waddan taallatiga waa guuli noo soo hoyatay oo ay ka mid noqdaan ururka dawladda hoose ay ku bohoobeen geeska Afrika runtii
waxaan ahayn waftigan oo ka koobnaa 3 xubnood runtii hawshaas waxay noqotay hawl guul inoo soo hoyatay waxaana ka dhacay shirkaasi Bujumbura iyadoo uu daba socdo kulan dambe oo dhici doona hadii la yiraahdo oo bisha dambe dhici doona kaasoo meeradu intooda badan ay tagi doonaan iyadoo uu helinayo agaasimaha ururka dawladda hoose ee Soomaaliland Al-Qasal Cabdillaahi waana filaynaa runtii talaabooyinka ay qaadayso Soomaaliland halkaas ka muuqata iyadoo oo wadamo la aqoonsan yahay ay tartanka kula soo dhigtaan ama application-ka inaad noqoto wadanka kaliya laga dhex qaatay taas waxay muujinaysaa dariiqa saxda ee aynu socono ayay muujinaysaa runtii faleedka halkan aanu ku nimay runtii Soomaaliland in badan oo aan is ogeyn ayuunbay diyaaraddu kulmisay oo waftiyo kala duwan taas waxay muujinaysaa halganka ama dariiqa saxda ah ee Soomaaliland ugu jirto hanaanka dimuqraadiyadeed waana tamaanta laga dhex xushay dawladda dhexe iska daayay dawladii hoose inaynu ka dhex muuqano wadamadii kale geeska Afrika aad iyo aadna waa maasantiin arintaasna waxay ahayd mid salka ku haysa tayeynta adeega ay qabanayaan dawladda hoose buu salka ku hayay waana filaynaa halka uu maanta taagan yahay inuu ka sii wanaagsanaado wixii khibrad iyo talo isweydaarsiina waanu kala nimi aad iyo aadna waa maasantiin